soo dhawaada. Magacaygu waa Safiyo, waxaan jiraa 37 sano. Dhibkayga iyo rafaadkaygu waxa uu ka bilowday markii aan dhalay cunugayga saddexaad oo ah gabadh. Ilaah ayaan u mahadcelinay aniga iyo ninkaygaba. Laakiin waxa ay wax kasta isbedeleen markii ay dhan kasta naga soo gaareen hadallo aan qalbiga farxad gelinaynin. Dadka dhammaantood in ay ceeb noo yeelaan ayay go'aan ku gaareen aniga iyo aabbaha gabdhaha aan hooyada u dhalay. Faa'iido ma lahan waxa ay dhahayaan, ma dhalin wax magacaaga ka reeba. Anigana markii aan aado meel lagu qabo xaflad ay haweenkugu kulansan yihiin, dadka waxay i dhahaan waa maskiinad, ma dhalin waxaan gabdho ka ahayn. Midda kale waxay dhahaan maxay ku fali gabdhaha. Marka uu hadalka bato oo laga hadlaa gabdhaha, waxaa bedelma ninkayga wejigiisa sida uu u fiirinaya gabdhaha. Waxa uu u arkaa gabdhihiisa inay yihiin ceeb ku taalo. Waxa uu ii arkaa anigana in aan ahay qofka sababay waxaan oo dhan. Maalin ayuu soo gaaray guriga, waxa uu qabtay dharkayga. Waxa uu igu dhahay, adi ayaa leh sababta ay u dhacayaan waxaan oo dhan. Ma awoodo inaan la fadhiisto saaxiibaday. In naxariisa ma igu fiiriyaan saaxiibaday. Xoog ayuu ii kala tuuray waana uu ka baxay guriga. In badan ayaan ka carooday hadalkiisa, laakiin waxaan wax kasta ka doorbiday inaan aamusnaado. 2 sano kadib waxaan ogaaday inaan uur leeyahay oo waxaan aaday baaritaan. Ninkayga waxa uu igu yiri waxaad haysataa fursad ah in aad wiil dhashid, haddii kale waxaan raadsanayaa naag kale oo ii dhashay wiilal badan. Intaas kadib aad ayaan u ilmeeyay, weliba mana awoodin hadal. Waxaan baryay Ilaahay aniga oo dukanaya oo weydiisanaya inuu ilmaha uurkayga ku jira iga dhigo wiil si ay u dayacmin gabdhaha xilliga la gaaro guurka oo ay u kala dheeraan aabahood. Markii aan gaaray bisha 4aad, waxa uu igu qasbay inaan aado dhakhtar si aan u kala ogaado wiil iyo gabadh waxaan wado. Dhakhtarkii waxa uu bilaabay baaritaan sidii uu kala ogaan lahaa wiil iyo gabadh waxaan caloosha ku sido. Aniga waxa iga socota ilinta, wadnahayga aad buu u garaacmayaa. Dhakhtarada ayaa xafiiskeeda noogu yeertay si ay xog baaritaan noola wadaagto. Indhaheeda waxa ka muuqda murugo iyo walwal. Ninkayga waxa ka muuqda xanaaq iyo ciil. Laakiin aniga weli waa ay socotaa ilintayda oo ma aysan joogsanin. Dhakhtarada ayaa waxay tiri waan ka xumahay, waa uu isku eg yahay oo si fiican looma garanayo waxa uu yahay ilmaha caloosha ku jira. Waxa ila quman inaad iska soo rido. Waan istaagay, waana diiday in aan soo rido calooshayda waxa ku jira. Isku ekaanshaha wax dhib ah ma lahan ayaan dhahay. Markii aan guriga ku soo laabanay ayuu ninkaygu xanaaqsan igu yiri, wax faa'iido aad leedahay ma lahan. 3 gabdhood iyo waxaan la garanayn oo isku eg. Waa qasab inaad soo ridaa, haddii kale waa ku furaa. Waxaan cod dheer ku dhahay ma samaynayo. Waxa uu i dhahay dhib ma lahan, laakiin ogow waxaan guursanayaa mid kale. Waana uu iga tagay aniga oo ay ilinta iga socoto. Albaabka si xoog ah ayuu u sii xiray. Waxaad moodaa inuu albaabka siibayo awood uu u xiray darteed. Waxaan bilaabay inaan dukado, in badan ayaan Ilaah baryay inuu wax kasta oo xun ka badbaadiyo uurka aan wado. Waxaan Ilaah ka ballan qaaday inaan ilaalin doono 3 gabdhood oo aan si fiican u barbaarin doono. Anigoo ah bisha 7aad ayaan maalin maalmaha ka mid ah waxaan ku dul fadhiistay sijaayadaydii aan ku dukanayay, indhahaygana ilinta ay ka socoto. Waxaa soo dhacay telefoonka guriga. Si degdeg ah ayaan u qabtay mise waa xafiiska maamulka isbitaalka. Waxa ayna ii sheegeen arrin naxdin leh in ninkayga uu galay shil uuna ku jiro xaalad aad iyo aad u xun. Markii aan tagay isbitaalka waxaan u tagay isaga oo geeriyooday. Waxaanu noqday garoob uur leh, calooshana ku sidata ilmo aan la garanayn waxa ay yihiin. Qadarteyda waxaan ku ahay raali. Markii aan ka baxay waqti asaydhiga, waxa ii yimid ninkayga walaalihiisa. Waxa ay rabaan inay guriga iga saaraan. Waxaan ku dhahay guriga waxa xaq u leh gabdhahayga, waxa ayna ka dhaxleen aabahood. Laakiin haddii uu wiil jiri lahaa waxa qaybta geli lahaa adeeryaal. Laakiin waxa ka codsaday inay isiiyaan 3 bilood sababtoo ah naagta uurka la cudada u dhamaata markii ay dhasho. Si markaas aan u helo meel aan dago iyo si aan u guuri karo. Waxaan ahay agoon oo ma lihi meel kale oo aan aado ama qof qaraabo ah. Way aamuseen waa ayna baxeen, weliba iyaga oo rabo in ay helaan waxa ay jeclaayeen oo ah inaan degdeg uga baxo guriga. Inta aan uurka lahaa waxa isoo maray maalmo aad u adag una murugo badan. Wax kastoo xun waxa ay ku soo dhacayeen dhagahayga. In badan ayaan fikirayay xagee aadi doontaa haddii ay guriga iga saaraan aniga oo aan lahayn qof aan aado.
laakiin waxaan leeyahay ilaah aan baryo igana qaadi karo culayska iyo dhibka i haysta. Markii aan gaaray 9 bilood ayaa waxaa ii yimid ninkayga walaalihiisa waxay ii sheegeen in ay guriga gadayaan. Inta aan xaq ahaan guriga uga lahaana lacag ahaan ii siinayaan. Si lama filaan ah ayaan waxaan u dareemay inay i hayso fool. Waxa ay ila degdegeen isbitaalka. Waxaa la gaaray maalintii aan dhali lahaa. Aniga waxaan u arkayay maalin ani iyo gabdhahayga noo daran. 2 saac ayaa isoo martay oo welwel ah. Intaas kadib waxaa ii timid dhakhtarada oo ileh boqoradayda hambalyo waxa aad dhashay 2 wiil oo aad u qurux badan. Ilaah ha kaaga dhigo kuwa baari ku ah. Waxaan ku yiri hadda ka hor waxaad dhahday iska soo rid ilmaha ma xasuusataa. Waxay iigu jawaabtay waa runtaa sababtoo ah waxay ahaayeen 2 wiil oo ay isdul saarnaayeen. Marka taas ayaa keentay in la kala garan waayo waxa aad sidid. In badan ayaan farxad ayaan la ilmeeyay oo waxaan ku helay farxadda ayaa ah inaan sabray oo waxaan ka badbaadiyay wiilashayda geeri. Waxa uu ilaah iigu deeqay waxaan ka filaynin. Markii aan guriga ku soo laabtay ayaa waxaa ii yimid ninkayga walaalihiisa mar saddexaad si ay guriga iiga saaraan. Waxaan wacay imaamka masaajidka xaafadeena ku yaala. Waxaana u sheegay inay dhaxal dadkan waxba u lahayn oo ay ii joogaan wiilal iyo gabdho agoomo ah. Iyagana waxa ay ku doodayeen oo dhaheen ma joogin wiilasha markii uu dhimanayay walaalkeen. Sheekha masjidka ayaa yiri waxa ay ku jireen caloosha markii uu dhimanayay walaalkiin. Qofka aad rabtana weydiiyo oo yaqaana arrimaha dhaxalka. Waa ay baxeen iyaga oo wixii rabeen aysan u suura galin. Laakiin aniga waxaan u mahad celiyay iimaanka sida uu xaqa u sheegay darteed. Inta uusan bixin waxa uu ii soo taagay lacag uu i dhahay qaado lacagtan carruurtaada siiso ilaa aad wax helaysaan. Maanta waxaan dhex joognaa gurigeena aniga iyo gabdhahayga iyo wiilashayda. Waxaan ku dhex tolaa dharka gurigayga. In badan ayaan ilaah u mahad celiyay xaaladda aan ku jiro. Fadlan daawada sidee u aragtaa nin u nafbaxay gabdho kaliya ayaad dhashaa? Fikirkaaga hoos noogu reeb.